munaasabadan oo lagu maamuusayay maalmaha xurriyadda Soomaaliya gaar ahaan sanad guuradii 53 ee ka soo wareegatay markii ay xoroobeen gobolada koonfureed ee Soomaaliya sidoo kalena ay midoobeen gobolada waqooyi iyo koonfureed Soomaaliya ayaa ka dhacday bariga magaalada Lusaka ee caasimadda waddanka Zambia. munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay qaar ka mid ah odayaasha jaaliyadda Soomaaliyeed dhalinyarada iyo waliba xubnaha jaaliyadda sidoo kalena waxa munaasabadan ka soo qayb galay safiirka safaaradda Soomaaliya u fadhiya waddanka Zambia ambassador Maxamed Xasan Dawaara waxaana ugu horeyn goobta ka hadlay safiir Maxamed Xasan Dawaara wuxuuna ku dheeraaday qiimaha ay xurriyaddu leedahay iyo halgankii dheeraa ee loo soo maray helista calanka buluuga iyo ka xoreynta ciidda Soomaaliyeed gumeystihii Talyaaniga iyo Ingiriiska sidoo kalena waxa uu safiirku la dardaarmay dhalinyarada Soomaaliyeed ee xogsatada ee ku nool waddanka Zambia isagoona ku booriyay inay dhowraan magaca iyo sharafta Soomaaliyeed inaynu u dabaaldegno maalin qiimo iyo qaayayno leh oo ah maalintii gobolada koonfureed ay reeriyada gumaysiga iska tuureen isla markaana ay la midoobeen gobolada waqooyi muddadaas oo laga joogo 53 sano waxaynu u babac dhignay oo aynu sutida u qabanay dawlado xoog ah oo qadiim ah waxa weeye qarannimadeennii waxaynu ku soo ceshan karaa isku duubnidii wada jirkii idinku maadaama aad dadkii ku dhex jirtaan oo laga yaabo qaarkii 8 dal oo dadkana la jaar yahay isaga gudubtaan waxa ogaataan ninkii khalad sameeya waxa la odhanayaa nin Soomaaliyeed baa khalad sameeya la odhan maayo hebel baa sameeya waxaan leeyahay dadweynaheena reer Zambia aad iyo aad baad u mahadsantihiin hawshatan aad soo qabanqaabiseen madaxweynaha iyo dawladda waxaan leeyahay annagu waxaanu ku noolahay dibadda dadka dibadda ku nool intaa waa idin fiirinayaan waxaanu sugaynaa waddankii inaad noo dejisaan inaanu ku soo noqonno oonu ku faraxno ayaanu jecelnahay walaalayaal waxaan malaynayaa horta waxay isugu nimid waxa weeye Soomaaliya midoobay labada gobol iyo maalintii Talyaaniga ee ka xoroobay oo ay isu tageen gobolada waqooyi iyo gobolada koonfureed waxaa loo baahan yahay marka haddaynu Soomaali nahay wixii dhacay in aan dib loo fiirin ee horey loo socdo see horey loogu socon karaa horey waxaa loogu socon karaa isku duubnin qabiilka oo la tuuro waxaa ka haray Soomaalida waxaa la oran karaa calankaas iyo heesta astaanta qaranka oo Soomaaliya tooso isku tiirsada la yiraahdo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaanu leenahay farxad iyo reereen soo sanadkan sanadkiisa waddankeena laga soo noqon doonayna insha Allah munaasabadan ayaa waxay qayb ka tahay munaasabado isdaba joog oo loogu dabaaldegayo xuska maalmaha xurriyadda Soomaaliya gaar ahaan xurriyaddii koonfurta Soomaaliya iyo midowgii koonfur iyo waqooyi waxaana caawa si weyn u xustay jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Zambia Saciid Musa Daahir Universal TV Lusaka